السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي أنا قد أول نسوا سنكلور سومالي تي في وحا هالكن إلى جوكتا فاطمة إبراهيم أو كم إذا دتك دكان مقالة سنكلور يعني فاطمة هالكن وحي كسوق بقشة مانتا كلن هالكن ليسكو يمد أو دتك والدين تا سومالي ذا كهالين دباتوين كعرورتو ذا كهايستا وحبرشة دقمدن أما سكولات كويا لمقالة سنكلور فاطمة كسودو مركو قرصة تلفزيون كسنكلور سومالي تي في سؤال أوجه الرئيسان ربينا كويتية وحي تاعي وما حي دباتة أوجوين هذا والدين تهين إذا كقبصتي إسكولات كان. أنا جاهز دبعتي من ابتكار إن المهنة مركز تا المها كلا كهوسيان حاجة وحبرشة أما هدي دم بيرا فضود جلان لوجا ديك دم بيوين وإسكولات كلوجا عيرية أما إن 10 days سبين للسيو أما إن 5 days سبين للسيو وحير أو دم بير أو إن يرأي إن دم بيوين لوجا ديكو. أنا محا أملاني سامعني كلفة دبعتداس إن عرورتي إسكول كلا عيريو ما أخلاق حمو عنق الصومالي السمينية بس معلم كيبان أردو القاعدة الرقمات كأرتيد الصومالي. waxaa laga yaabaa inuu macalinka uu ku dul qaadan waayo dhaqanka Soomaaliga ilmahan uu ku dhaqmayo ama inay midab naceeb iska jirto oo uu dhaho cunugan waa cunug madow Soomaalidan way akhlaaq daran yihiin ka dhaadhacsan maadaama saal agligeed ayaa ilmaheena badi loo cayriyaa oo dhibaatooyinka loogu sameeyaa wax ma iiga sheegi kartaa la taaban karaayo adiga ahaan experience ama waxa kala kulantay iskuulaadka oo aad aragtay macalinka inuu uga exday cunug Soomaaliya waxaan u soo joogay dhacdooyin badan oo sida cunug cadaan ah iyo cunug Soomaali oo hoolweyga maraya intuu cunugii cadaanka cunuga wax ku dhuftay cunugii Soomaaliga markuu dul qaadan waayay uu nabar kale ku dhuftay la dhahay cunugii Soomaaliga ahaa iskoolka ka tag maadaama aad 3 jeer 4 jeer amal aad ilmo la dagaashay oo 10 days suspend la siiyay maalinka ku xigtana la yiri haddaad juuq dhahdo iskoolka waa laga ceyrinayaa ma dhiganaysid iskoolka أنا والدين تيدين كهداتهين محاكا سميسان ما تكتان إسكولاتكم ما كدعوتان دباتوين كاللقصة مينا عروتين والدين الصومالي ما كلانتان إذاكم مسوتي مادان دباتوين كما كهدشان anaga haddaanay waalidiinta Soomaalida mana isu tagno mana kulano mana wada hadalno balse aniga qaasiyatan familyo badan oo dhibaato ka dhacday iskoolada u raacay oo principalka oo la tagay gabar kale waxaa jirta madow oo la dhahayo Lilia White la dhahayo oo nagu tiri looyarad baan waxaan ka soo ahaan jiray California cid Soomaali ama cid madow oo dhibaataysan oo iskoolka dhibaato ka sheegda arto ii soo sheeg tiri saddex qoys baan u raacay qaasiyatan aniga keeska iigu soo dhaw wuxuu ahaa walaalkay oo high school dhigto ونا شقيا أيا وحلو يري شلا إسكال كماذا إيمانين وحير وين شو معلنو معلن كي وحير كل هاي أنا يوقف علني يسوي وادي لا دقع شيء بحتك أنا واحد جرت واحد وربحين هالكن كصوب حذيل إن عيال كصوم مذوقة إسكولات كأد لوجا عيريو وكبضان عيال كعدان كسنة كان صورة في محن ولينا وحقوق أفر بقول يلا بعتن عرورة إن إسكم suspension لجا عيري إسكولات أو عنق إسكول كم غنا إن وحي سدي كلها مركا إن دبعتها جرتو لوجا جود بكرة سدي كلها waxaa dhibaatadan oo gudbi karnaa annaga Soomaalida Seenkalaw ku nool oo isu timaado oo wada hadalno oo cid kasta dhibki ku dhacay sheegto oo tirwan dhibkana ay ku dhacay haduuna ani maanta dhib igu dhicin berri aduu kugu dhacaya berri familka kale ku dhacaya maalin bicunug haduu dhib ku dhaco la ceyriyana maalinka dam waxay noqonaysaa ama ilmaheeni iskoolka dadka walwaalan la geeyo ama in prisonka la geeyo dhibaatada waa inaan ka hadalno waa inaan u istaagno ilmaheena ani ciyaalkay way yaryar yihiin balse maalin kasta waxa ay wada oon jecel inaan ka hadlo ilmaha dhibaataysan oo Soomaaliyeed oo iskoolada laga ceyrinayo ma rabo inaan arko su-aasha ugu dambayso aan rabaa inaan ku weydiiyaa waxay tahay caruurta Soomaalida ayagana maxaa laga rabaa oo akhlaaqaday noqoto wanaag sameyn iyo noqoto macallinkii inuu maqlo maxaa aad fari lahayd caruurta ama aad ku oran lahayd caruurta Soomaalida ayagana waxaa caruurta Soomaaliyeed leeyahay inay marka hore waxa qaladka ay sameynayaan inay iska daayaan waxaa dhacdo aroortii marka ilmuhu baska ay ka raacayaan waalidku waa inuu ilmihiisa la hadlo ilmaha waa ciyaal yar yar waa in wax la xasuusiyo hebelow maanta haduu macalinku yeero u tag macalinka la hadal hadii macalinku uu ku dhaw waxan qalada sameynaysa iska daa waa inaad cunugaada inaad u sheegto aroortii markuu ilmahaada baxayo waa inaad waaniso waa inaad la hadasho waa inaad iskoolka tagto waa inaad iskoolka xaaladiisa ogaato waa inaad macalinka cunugaada u dhigaya aad taqaanto oo magaciisa garanayso oo meelaad kala xiriirto aad leedahay email baa dadka loo soo diraa waalidiinta iskoolada qaarkood way fiican yihiin iskoolada qaarkoodna ma fiicna balse waalidiinta waxaan ku dhiirin gelin lahaa ay ilmaha Soomaaliyeed inay akhlaaqdooda wax ka bedelaan oyna isdhihin waanila cariirinaya ama waanila midabta koor baan lagu sameeynaya inayna dhihin oo siday wax ku baran lahaayeen oo heer jaamacadeed oo ku gaari lahaayeen inay falaan
balse inayna isdhihin madow baan nahay waana la midabta kooraya inayna dhihin baan ku dhiirigelin lahaa waalidiintana waxaan leeyahay aroorti intaada bixin ilmahaada la hadal la dardaaran habeenkii la hadal ilmahu saaxiib baa lala noqda waa lala sheekaystaa warniyo maxaa maanta lasoo kulantaa la dhahaa iskoolada dhibaatooyin badanaa ka dhacaan war maxaad u baahantaa la dhahaa waxa haddaad maanta maadada ku baasto waxbaan kuusoo gadayaa fan baan kuu sameynaya in ilmaha la kaxeeyo dadkeena badi waxay sameeyaan waxay ka reebaan ilmaha boys and girls club way ka reebaan meelaha wax lagu barayo dhan way ka celiyaan waxay aniga ma wadi karo ma geyn karo meelahay dhahaan inay ilmaha fan siiyaan inay ilmaha la sheekaystaan inay ilmaha moolka oo kale wuxuu leeyahay meel ciyaalka lagu ciyaarsiiyo inay 1 saac 2 saac inta ilmaha qaadaan ee halka kusoo ciyaarsiiyaan inay ilmahooda ayaga xiriir waalidkii ilmaha inay xiriir yeeshaan ayaan ku dhiirigelinayaa waalidiinta Soomaaliyeed